daawadayaal wali waxaan ku suganahay Cafe National waxaan mikrofoonka la dhexmaray dhalinyaro Soomaaliyeed oo iyagu ah dhalinyarada haatan jaaliyada Soomaaliyeed ee ku nool gobolka Minnesota kuwaas oo iyaguna ka soo qayb galay xafladda lagu taageerayay Maakhir University oo ku taala gobolka Sanaad degmada Baran ku soo dhawaada Sama TV idinkoo marka hore ku bilaabaya magaciidina waxaan rabaa in adiga ku bilowdo magacaaga marka hore magacayga waxa weeye Cabdirasaaq maxaa Cabdi Xaaji Umar Cabdirasaaq maxaad halkan u timi maanta I got her mother just to support the guy. It seems like he has a great vision for the country, for Somalia. Things like that, we really need to come together and support. If you don't mind, English, I love her. Go ahead. But then one thing that I want to tell everybody is that looking at this guy, Amir, what he's trying to accomplish for his country, knowing the fact that it is a great thing, but it should inspire people our age. I need mid-20s. We are being inspired by things like this, and then also looking at it in a positive way. Yes, we need to come together. The fact that because there is a bigger urgent that we need to come together for, and things like this should really definitely bring us come together and make us think even bigger than we usually think of. Knowing the fact that one man could accomplish things like this, imagine us coming together what we could accomplish for ourselves. Knowing the fact that we've been here longer than them. Yes, we do have the knowledge and experience as far as what we need to establish for ourselves. Yes, we are young, we are energetic, we could do so much. And with that, inshallah, hopefully could be one of the moments that will really bring the youth together, inshallah. aad aad ma santahay waxa kale oo isna dhinac taagan wiil dhalinyaro ah I hope inuu af Soomaali ku hadlo maadaama kii ka horeeyay oo ku hadlay luqadda Ingiriiska waa loo baahan yahay dhalinyaro ku hadlaysa luqadda Ingiriiska maxaa yeelay barnaamijka Sama TV waxa uu ku baxay af Soomaali inta badnayd laakiin ciyaal badan oo waxa jira iyagoo af Soomaaliga aan aqoon laakiin dareemaya hadda wiilka waxa uu ku hadlay iyo wax laga hadlayo ku soo dhaw Sama TV adigoo magacaaga ku bilaabay السلام عليكم magacayga maxaa la yiraahdaa Maayad Farahsi maxaan deganahay gobolka Minnesota maxaa halkan u timi maanta xaqiiqdii maxaa meeshan u imaaday mutaqaana inaan taageerno ninkan qorshihiisa isagoo ah mid aan dhamaantii u bogno sababtoo uu hormaray adigu ma halka ku dhalatay waxa timi intii dagaalada adigoo yar miyaa soo gashay bal taariikhdaada anigu halkan xaqiiqdii muddaas si dheer baan joogay kuma dhalanin mutaqaana waan ku farxsan inaan ku dhalano sababtoo ah haddii aan wadankan ku dhashay maanta ma aaminsanaan xaqiiqdii inaan Soomaalinimadu sax ku sii dheeraan lahayd kama noqdo wallahi Soomaali xan ku dhashay inaan Soomaali ku sii dheeraan laakiin waan fahmayaa dadka Soomaaliya jooga waxa ku sugan yihiin sababtoo aniga ayaa ku noolaan jiray wadankii ma idinku jirtaa rajo inaad wadankiina wax u qabataan maadaama hadda niman dhalinyaro aad tihiin ubax soo koriyay aad noqoteen dadkii halka wax ku bartaan noqoteen systemka halkaana aad aragteen qaabka uu shaqeynayo rajo intee leeg ayaad ka qabtaan wadankiina inaa inta dib ugu noqotaan dadkiina wax ka badashaan xaqiiqdii haddaan kaga hormaro Cabdirasaaq su'aashan maxaa dhiila waxaan ku jirtay aad iyo aad dheer baan ku jira xabees nagu jirnay maanta meesha ma numaan maxaan isku nimaanay Soomaalinimada iyo si aan wadankeena u hormarin waxyaalo badan ma sameynaa jirtaan iyo saxiibkaya maxaa loo baahan yahay marka hore Soomaali meel kasta joogto meel kasta aan joogno inaan isku nimaano aan wada xiriirno wada shaqeyno taa darteed aniga yarkan walkay marka saxiibkaya maxaan hadda meeshan ku sameynaa community service oo dhalinyarada Soomaaliya tacliiminta ka caawinaya dhalinyaradu Soomaalida badan oo imaanayaan waalidiin badan oo Soomaali ayaa jira ama taqaan halkan ku nool laakiin wadanka fahmaynin haddii aad caawinayso Soomaali noox ku joogo dariskaaga wadanka barmayna caawin soo shaqtay waxaan ku barnaa wadankan waan noqonaynaa wadanka taageerana wax kasta waxa xaflad ugu dambeyntii xafladtan oo kala hore ma uga soo qayb gasheen oo hore ma u timaadeen amin caamil sheekh hore ma u aragteen isagoo live amin caamil maanta igu horeysa xartunkiisa waan arkay iyo online waan ka arkay mid isaga aad iyo aad u dhiirigelin ay tahay maanta igu horeysa ninkaas aan ku arko sidee u aragtaan isaga aragtidiisa sidee u aragtaan nin isbedel keeni kara ma idin la muuqdaa xaqiiqdii صوركو الجنوب بدل صورك كلي نيكا صورك كلي وصوره dad badan noloshooda Soomaaliya ka beddelaya dhibaatada Soomaaliya ka socota dibsi ma ka dhageysatid iyo marka sawir ahaan u dhig aad u aragtid waa wax kala duwan waa qasab aad iyo aad baad u mahadsantihiin kuwaas waxay ahaayeen walishi dhalinyarada oo ka soo qayb galay xafladii lagu taageeray Maakhir University daawadayaal waxa barnaamijkan idin soo tubinaya waa Sama TV oo ku sugan Cafe National ee magaalada Minneapolis Northeast-ga waa Central-ka iyo 24 halka ay ku yaaleen waxa uu ku dhow yahay dukaanka loo yaqaan Holyland ayuu ka sokeeyaa marka Sama TV waxay diyaar u tahay
community-ga Soomaalida inay ka caawiso wax badan oo ay rabaan inay ku soo gudbiyaan aragtidooda adduunka dhaqaale kaliya maaha dhinaca media waxay idinkaga taageeraysaa Sama TV wax walba oo aad rabtaan inaad ku soo gudbisaan aragtidiina Sama TV waxay diyaar la tahay jiritaanka ummadda Soomaaliyeed meel kasta ay joogaan haddaba anigu Caawil Ushira iyo Maxamed Ali Xuseen waxaan idin leenahay nabadgelyo amaan Allah ismaqal dambe oo xiiso leh Thank you.